waagii aan maxbuuska u ahaa mid ka mid ah caaqil beeleedka Somaliland iyo dhacii ay u geysteen markabkayga maraakiibta ganacsiga caalamiga ah ee ku wajahan badweynta ayaa la soo daristay khataro aad u weyn iyo dhibaatooyin kala duwan. ganacsadaha Soomaaliyeed Axmed Faarax Ducaale khatartaasi waxay u noqdeen kuwo xaqiiqo ah kadib markii la afduubtay oo laga xaday markab ganacsi uu lahaa, taasoo ilaa iyo hadda aan loo soo celin markabkiisa, mana jirto wax magdhow ah iyo raaligelin uu ka helay raggii u geystay dhibaatooyinkaasi. taasi beddelkeeda waxa uu la kulmay jirdil iyo cagajuglayn joogto ah oo uu kala kulmay maleeshiyo beeleed iyo maamulka gudoodsan ee Somaliland. qormadan waraysiga gaarka ah Axmed Ducaale waxa uu markiisii ugu horeysay nooga waramaya arrimihii foosha xumeed ee uu kala kulmay markii markabkiisii la xaday iyo isku daygii faa'iido la'aanta ku soo dhamaaday ee uu ku doonayay inuu ku soo celiyo wixii uu xaqa u lahaa. inta aanan waraysiga galin horta waa kuma Axmed Faarax Ducaale, taariikh nololeedkiisa aan wax yar ka taabanno. Axmed Faarax Ducaale waxa uu ku dhashay Soomaaliya, waxa uuna ku soo barbaaray Soomaaliya qaab ka mid ah noloshiisa, qaybna dalka Talyaaniga. dugsiga hoose dhexe iyo sare waxa uu ka galay labada dal sanadkii 1967. waxa uu waxbarasho dheeraad ah u aaday dalka Denmark oo uu ku qaatay xirfad ku saabsan naaquudayanimada. kadib markii uu shahaadada heerka koowaad ee mastarka ka qaatay macadka badda ee Copenhagen, waxa uu bilaabay shaqo nololeed ciidan oo badda ah oo uu ka ahaa maareeyo maraakiibta, isaga oo ka shaqeeyay jagadan in ka badan 20 sano, kuwaasoo uu ku soo maray dhammaan qaaradaha adduunka. 20kaasi sano waxa uu ka waramayaa dhibaatadii uu muddada dheer ka soo maray intii uu shaqada ku jiray. waxa uu yiri, anigoo dareemaya inaan dhameeyay shaqadayda ciidamada badda oo aan isku dayay inaan ku dhiirrado xirfad kale oo badda ah, ayaa aniga iyo saaxiibkay Hena Bech waxaan iibsanay markab ganacsi oo Japan lagu sameeyay 1987. waxaan u bixinay M/V Somdana 1 xarfaha LMBB bishii Janaayo ee 2001. waxaan ka helnay shahaadada aan ku howlgali lahayn qunsuliyadda guud ee Soomaaliya ee Roma. waxaan u diiwaangelinay markab caadi ah oo ganacsi ah oo ay leedahay shirkadda Somdana Marina Service Ltd. waxaan si degdeg ah u bilaabay in aan ururiyo koox maamusha markabka safarkiisii ugu horeysay uu ku tagayo dhulkaygii hooyo ee Soomaaliya ee aan jeclaa. waxaan shaqaaleysiiyay 3 badmaaxayaal oo Danish u dhashay oo khibrad fiican u leh, kana kooban kabtan, injineer badeed iyo nin khibrad leh. waxaan kaloo ogaa in markabka uu u baahan yahay gacmo badan si ay howshiisa si habsami leh ugu socoto. tani waxay igu kaliftay inaan weydiiyo shaqaale Soomaalida dhawaan ku noqotay dalka Denmark qaxootiga ee ka soo cararay dagaaladii sokeeye, anigoo islahaa in durbadiiba ay noqonayaan shaqaale ku fiican badmaaxnimada. waxaan aaminsanaa weligay hagid iyo tababar yar qof kasta oo Soomaali ah inuu noqon karo badmaaxo wanaagsan. go'aankani ayaa igu noqday mid xanuun badan oon weligay ka qoomameeyo. bishii Juun ee 2001 waxaan xasuustaa inaan dareemay guul markii markabka MV Somdana 1 uu si xaraga leh uga dhoofay dekedda Esbjerg ee dalka Denmark, isagoo ku sii jeeda dhulka aan asal ahaan ka soo jeeday ee Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Kismaayo. xamuulka aadka u weyn ee markabka waxa uu ka koobnaa 3 Land Rover 4x4 baabuurta ciidamada ee Mercedes-Benz iyo 1 Iveco truck, matoorada waraabka 11 matoorada naaftada ah, 50 kilomitir oo shabaqa kalluumaysiga ah iyo in ka badan 1500 shabaag oo kalluumaysi ah iyo 3 konteenar oo qaboojiyaasha waaweyn ee warshadaha. markii uu markabka soo marayo kanaal Suez oo uu soo marayo badda cas oo uu si toos ugu wajahan yahay Djibouti, ayaa 3 nin ee Soomaalida ahayd ee aan shaqaaleeyay ayaa ku soo booday naaquudihii una sheegay in markabka uu u rogo dhinaca iyo magaalada Berbera. waxaan la xiriiray kabtanka oo si kadis ah ula xiriiray safaaradda Denmark ee Nairobi. markabkayga waxa uu ku safrayay magaca Soomaaliya, waxaana ka babanayay calanka Soomaaliya. markiiba waxaan gartay in ay wax qaldan yihiin, waxaana wacay mid ka mid ah odayaal dhaqameedka sida weyn looga yaqaan dalka Djibouti si ay gacan uga geystaan sidii ay u heli lahaayeen koox ka kooban 12 askari oo ah ilaalada xeebaha Djibouti si ay u qabtaan markabkayga inta uu ku sugan yahay biyaha Djibouti, laguna jaheeyo dhanka iyo Muqdisho. markii ay soo gaartay fariinta naaquudaha oo ah in markabka lagu amray inuu Berbera u sii gudbo, ayaan isla markiiba diyaaradda xigta ka soo raacay dalka Denmark, aniga iyo ninkii shirkadda aan wada ahayn, si aan maalinta xigta Hargeysa uga soo degno. markii aan imid isla markiiba waxaan soo raacay baabuur u socday Berbera, aniga oo in 7 ilaa 8 saac kaliya ay ku qaadanaysay in markabka
uu ka sharacdo xeebaha Jabuuti. Markii ay soo gaareen dekedda Berbera, waxaa la dejiyay dhammaan shaqaalihii markabka, waxaana laga qaaday baasaboorradii ay wateen, waxaana si xoog loo dejiyay hotel. Isla markiiba waxa aan dareemay khatar weyn oo ku imaata shaqaalaha Deenishka anigoo ka cabsi qabay in ay ka argagaxaan xaaladda afduubka ee la soo gudboonaatay. Ayaan isla markiiba qorshe daadgurayn ah oo degdeg ah u sameeyey. Waxaa la ii sheegay in baasaboorradii iyo warqadihii kale ee safarka ay ka qaaday saldhigga booliska dekedda Berbera. Halkaasi ayaan tagay oo aan u soo bandhigay laaluush sarkaalkii maamulayay saldhiggaasi si uu baasaboorradii igu soo celiyo, taasoo aan ku guulaystay. Kadib waxaan si degdeg ah u saaray gaadhi ku sii jeeda magaalada Hargeysa si aan diyaarad ugu saaro, taasoo u socotay Addis Ababa, caasimadda waddanka jaarka aanu nahay ee Itoobiya. Saacado kadib markii aan damaanad qaaday baxsashadooda wakhtigeeda ku habboon, waxaan dib ugu noqday markabkayga anigoo og inay shaqo weyn ii hor taallo. Waxaan si degdeg ah u gartay inaysan hadda ahayn Soomaalidii aan aqaanay anigoo ah nin dhalinyaro ah, sidoo kalena gaar ahaan gobolkani uusan isu aqoon inuu ka mid yahay Soomaaliya, waayo dagaaladii sokeeye ee 1991 ayaa dhacay anigoo ka maqan dalka. Isla markiiba waxaan ogaaday inaan ka dhashay nooca Soomaaliga ah ay doonayeen inay ka argoostaan. Intii aan caawinayay shaqaalihii ajnabiga ahaa ee markabka iyo ninkii aan shirkadda wada ahayn, waxaa loo diray koox baadigoobta oo dhinac walba ka raadiya, laakiin Ilaah mahadii waa ay awoodi waayeen in ay helaan. Markii aan ku soo laabtay dekedda, ayaan la yaabay markii aan arkay calankii markabka oo laga dejiyey, kaasoo ahaa calanka Soomaaliya oo lagu bedelay mid aan isla markiiba aanan aqoonsan, balse markii dambe noqday calanka maamulka Somaliland. Waxaan aad uga xumaaday markii aan arkay inay ku buufiyeen rinji magaca markabkayga si ay u qariyaan calaamadda markabka. Sidoo kale dhammaan dukumiintiyada markabka waa la qaatay. Tani waxay ahayd 22 Luulyo ee 2001 abbaara subaxii hore ah. Anigoo aad uga caraysan falka wuxuushnimada ah, ayaan maamulka dekedda weydiiyey sababta markabkayga maalin cad loo dhacaya. Rag hubaysan ayaa lagu wargeliyey joogitaankayga. Isla markiiba si xoog leh ayaa la iigu jilba joogsaday oo la ii qaaday. Waxaan nasiib u yeeshay inaan kelmad kaga tago wakiil markab oo magaciisa la yiraahdo Axmed Faarax oo ahaa mulkiilaha shirkadda maraakiibta ee Tabuk si uu igu sii eego markabkayga. Qaybteena koowaad wareysigeenna intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa. La soco qaybta labaad ee wareysigeenna. Waad ku mahadsantahay dhegeysigaada. Fadlan gaarsii asxaabtaada. Waad mahadsantahay. Salaamu calaykum.